بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعند وديال رمضان كريم kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo maanta stuudiyaha Milga Media aan marti uga dhignay wareysigan la taliyaha arrimaha haweenka ee dawladda Puntland xafiiska madaxweynaha Marwo Luul Ferreira. marka hore waxaan rabaa inaan Luul soo dhaweeyo ugu horeyn. Luul soo dhaw. waa dhaw waa mahadsantahay. waayahay Luul Ferreira, marka hore waxaan noo sharaxdaa waajibaadka iyo shaqada arrimaha xafiiska la taliyaha ee arrimaha haweenka ee madaxweynaha Puntland ka tahay. waa mahadsantahay Milga Media. xafiiskani waa xafiis la talin wuxuu ka taliyaa arrimaha ku saabsan ka qaybgalka iyo dawlad dhiska ee saameeya haweenka ayuu kala taliyaa madaxweynaha. maxay marka tan iyo magacaabistaadii waxyaabihii aad qabatay oo xafiiska qabtay? xafiiskani saan kuu sheegay waa la talin, wuxuu toos u hoos tagaa madaxweynaha wuxuuna ka shaqeeyaa sidii haweenka ay uga soo muuqan lahaayeen miisaska go'aan gaarista. intii anagu aan xafiiskan joogay dawladda wax badan baa ku soo siyaaday, tiro badan oo gabdho ah oo wasiirraahi waa yimaadeen. doorashooyinkii dimuqraadiyaddana qayb fiican baa xafiiskayga uu ka ahaa. number fiican oo gabdho ahna waan helnay alxamdulilah. waayo markaas sidee ayaad u qiimeyn kartaa ka qaybgalka haweenka Puntland ee dawlad dhiska gaar ahaan go'aan qaadashada iyo hogaaminta siyaasadda? horta haweenka Puntland waad ogtahay waa laf dhabar ta bulshada weeye. waxay kaalin muuqato ku leeyihiin arrimaha nabad dhiska, dawlad dhiska, waxbarashada, caafimaadka iyo horumarinta dhaqaalaha intaba. kaalintooda waa kaalin muuqata. qayb kasta oo bulshada arrimaheeda ana haweenku waa kuwa ugu firfircoon uguna cadcad shaqada markii la yiraahdo arrimaha siyaasadda iyo ka qaybgalka danaha. laakiin sida ognahay baarlamaanka Puntland hal gabar baa ku jirta oo 66 xildhibaan. taas ma la dhihi karaa guulo lagama gaarin weli meeshii la rabay? waad ogtahay oo kuraasta baarlamaanku inta badan waxay salka ku hayaan arrimo beeleed iyo qabiil. qabiilkuna waad ogtahay inuusan gabdhaha siinin space ama fursaddii gabdhuhu ay xaqa u lahaayeen qabiilku ma siiyo. qolo walba oo kursigaas xildhibaan leh waxay jecel yihiin kursigooda inuu ka muuqdo ama matalaadooda uu hayo nin. waxyaabo kale bay ku xisaabtamaan oo gabdhaha waa xaqlayaan moostali ama ha yiraahdeen gabadhaasi dee reerkan hadda kursiga leh reer kala qaba. adugu arrimaha dhaqanka ah baa challenge ah maahine saasay gabdhuhu ay halka kursi ku heleen. marka challenge-gaasi sidee loo gudbi karaa aslada? wallahi hadda waxaa moodaa habka ay nidaamka hadda Puntland ay ku socoto oo ah nidaamka dimuqraadiga ah kaasaa soo dhaweynaya fursadda gabadha inay u hesho kursigay doonto iyo positionkay doonto, maadaama codkii la weydiinayo shacabkii iyagu ay yihiin cod bixiyayaal firfircoon, haddana ay yihiin number tiro badan oo haddii ay ku talagalaan inay soo saaraan gabdhahooda qayb ka mid ah ay soo saaraan ay awoodi karayaan. oo dee sidii kursiga la weydiinayay reer oo reerkaasina uu gabadha ama liidayay ama lahaa kursigayga maanta dee anagu gabar uma rabnaa wiil baan u rabnaa. taasaa lagaga gudbi karayaa baan isleeyahay. laakiin dhinaca kale caqabadaha jira waxaa ka mid ah gabdhaha waxaa la yiraahdaa iyaga cadow isku ah ama isku hiilin markay doorashada joogto. taas ka warso iyaga caqabad isku ah Soomaa? maya anu taas uma arko inay gabdhuhu iyagu cadow isku yihiin. gabdhuhu waxba ma kala haystaan. cadowga gabdhaha waxaa ku ah dhaqanka. ayaga lafteeda dhaqankaa saameynaya. dhaqankiba wuxuu tusayaa markii gabar iyo wiil ay sharaxan yihiin inay wiilka in adeerkeeda raacdo. dhaqankaa tusaya waxay leedahay kani waa dumaashigay, waa inaan isaga u hiiliyaa, maanta garab buu iiga baahan yahay, kani waa inaan adeerkay, kan abtigay baa dhalay, kan habaryartay baa dhashay. markasta gabdhuhu waa iska caadifi. waxay inta badan oo dhaqanka kasoo manguurinayaan qabiilkii lagu dulmayay iyadoo oo kursiga ku weyday bay iyadu inta badan garabka siinaysaa. marka taasaa caqabada maahan, iyagu nacayb dhexdooda ka dhaxeeya maaha. waayo taas haweenka waa dhinaca siyaasadda. dhinaca arrimaha bulshada haddii aan wax ka weydiiyo, tan iyo burburkii dawladdii dhexe ee dalka markay burburtay la soo qaxay
haweenka ayaa kaalin weyn ka qaatay dhismaha qoysaska. hooyo kasta ayaa ubadkeeda soo saartay, waxbarasho ka soo saartay, rafaad isla ka soo martay. xafiiskaaga muxuu dumarkaas u qabtaa hooyooyinka jilicsan ee qoysaska dhibaatada la soo maray ilaa hadda waxbarashada ka bixiyay ilaa heer jaamacadeed? horta xafiiskani waa runta horta dhibaato badan bay dumarku la soo maraan ilmaha. anaguba kuwaasaan ka mid ah ilmaha la soo daala dhacaya inkastoo caruurtaydu dee aabbe leeyihiin oo caruuraha inta badan dumarku ama waa agoon ama waa aabbe ama waa agoon ama waa iska agoon oo ekaa jira xataa oo lagu dayaca caruurta ilmaha ama ilmihii aabbahood iyo hooyadood ay kala tageen. kuwaasi xanuun aad ah bay qabaan, laakiin dumar oo dhammi hawsha mas'uuliyadda inay hantaan caruurta oo heer gaarsiiyaan waa ay ka sameeyeen yihiin, ama mid nolol dhexe joogta ha ahaato oo mid nolol hoose joogta ha ahaatee. xafiiska markaan u soo noqdana xafiiska sidaan kuu sheegay arrimihiisu waa la talin. annagu ma nihin xafiis operation ah oo ama jooga bahalkigii ku lug leh inuu waxbarasho ama dhaafi karo ama ma nihin. xafiiskaygu aniga waa la talin, waa inaan dhaho caqabadaasaa jirta, saasaa jirta mudane madaxweyne, waa inaad arrimaha noocaasa aad ilka yeelataa. marka isaguna wasaaradaha iyo hay-adaha ay khuseeyaan ay ula tagaan, laakiin xafiisyada ay tahay inay si toosa arrintaas ugu lug yeeshaan waa xafiiska wasaaradda haweenka oo kaleta marka dumarka laga hadlayo kaasoo kaleta weeye. laakiin anigu dee markasta arrintaydu waa advice. waay marka laga hadlayo doorashooyinka Puntland sidee ayuu xafiiskaaga uga shaqeeyaa dhiirigelinta ka qaybgalka haweenka musharaxiinta ah? aad iyo aad waa shaqadayada taasi. markii aanan ahayn anigu aanan ahayn la taliyaha madaxweynahaba arrimaha haweenka waa ka shaqayn jiray. marka mar kastaba anagu waxaan nahay gabdhaha saydkooda, waana jecelnahay inay soo baxaan aniga iyo kuwa kaleba. aniga laftigaygu haddaan ahay la taliyaha madaxweynaha haddana mar kasta intii hadda Puntland jirtay oo dhan inta badan markii laga reebo dawladihii ay madaxda ka ahaayeen Cabdullaahi Yuusuf iyo Cadda Muuse iyo madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole, wixii ka dambeeyay waxaan ahaa musharax raadinaya kursiga xildhibaanka. kursigaasi maadaama arinta ka hadlayno caqabadii ka soo marma nooga sheegin kartaa? waa dareemi kartaa aduguba intaasoo sanaan raadinayay. waxaan raadinayay xilligii madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas, waxaan raadinayay xilligii hore oo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni, waxaan raadinayay haddana soo laabashadii dambe oo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. saddexda taanba inaan noqdo xildhibaan golaha shacabka Puntland ah waan ku fail garoobay because of kalaan. maxaa u sabab ahaa? waxa u sabab hadda dhaqanka u sabab ahaa waa mar kasta reerkayagu ama cidda anigu aan ka soo jeedo iyo dad soo dhaweeya dumarku inay kuraas qaataan ma ah. marka reerkayagu ku leeyahay dee waa wax common ah. afka kuma ballaarin karo reer hebel, laakiin reer hebel oo la yaqaano oo markaan sheego dadkoo dhan waaba iska garanayaanba. reer Garowe markaan dhaho ama degmada Garowe ma aha degmo ay caan ku ah inay gabdho ka soo baxaan ama xukuumadda ha galeen ama ha galeen golaha shacabka. midna weligood kuma lagu yeelan inay gabar ka timaado. marka laga reebo xilligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo gabar reer Nugaaleed isagoo 5 gobol keenay gabdhahood, 5 gobol baan gobolka ahayn. taasaa noogu horeysay, taasaana noogu dambeysay. markaan reer Puntland ahaan aan ka soo tagno aan degmada Garowe ama gobolka Nugaal nimaano, gabdhahoodu kuma jiraan xisaabta iyagu. iyadoo saas ay tahay haddana gabdhuhu marka dibadaha la aaday qoysaska waxa wax soo taray oo lagu anfacay waa gabdho. marka halkii wiilashii dhoofay reerarka qoysaskii u dhoofay qaarkood aan la arag taa ka war. wallahi aad baan ugu faraxsanahay inaad wariye qirtay inay gabdhuhu kaalinta ku jiraan. dal iyo dibadba gabdhuhu dhexda u xiran. hadday ahaan lahaayeen kuwii tagay oo lagu badbaaday oo qoysaska iyagu inay degaan oo wadanku dego sabab u ahaa, iyo kuwii joogay oo iyaguna inay dadkii soo saaraan oo dad soo saaraan oo maanta dalka wadanka maamulaya waa wixii ilaa burburkii dhashay weeye. iyo wixii ka horeeyay waa odayaal waa aniga iyo dadkayga oo kale to, laakiin wixii dambe dadka la soo tacaalay oo la soo tiriyo tacabeelay oo intaas soo ku soo mintidayay oo maanta in dal iyo dad ay hantaan maaragtay murtida loogu yahay dee haween baa keenay. marka kaalinta gabdhuhu ama dal ha joogaan ama dibad ha joogaan wax cad oo dariiqta cad sa u cad weeye waan la dafiri karin.
xafiiskaaga sidee bay uga go'an tahay in uu kor u qaado xuquuqda haweenka iyo sinaanta fursadaha maxaase weli u baahan in la xoojiyo wallahi geed dheer iyo geed gaaban baan u fuushanahay gabdhuhu kaalinta ay tabiyaan inay yimaadaan inay golaha shacabka aanu si fiican uga soo muuqano oo annagana loo kamaba maarmaba dawlad dhiskana loo kama maarmo dawlad ka qayb qaadashadana loo kama maarmo sababtoo gabdhuhu waa dad aad iyo aad una wadanisan una aaminna u ah oo hadday dawladda ku jiraan ay tahay dadka ugu corruptionka yar ama ugu maaragtay ugu daacadsan ama maaragtay aan isleeyahay xafiisyadooda xataa xafiisyada dumarku waxay aad iyo aad uga qurux badan yihiin xafiisyada ragga haddaa fiirisid sababtoo ah ayagu hadday helaan fursadaas waxay ka muujinayaan ama ku kabayaan xafiisyadooda iyo dadkooda iyo dadkay la shaqeeyaan bay ka muuqanaysaa waasaan aaminsanahay xafiiskayguna saas oo kaleetuu la mid yahay insha allah waayahay sidee baa u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee dalka waad ogtahay shirkii muqdisho oo lagu kala tegey waddanku wuxuu ku jiraa xaalad abaareed iyo mid qalalaasa siyaasadeed oo aan la ogeyn ilaa hadda nooca doorasho ee dalka dhacaysa horta abaaraha ilaahay baa keenay ilaahay baana ina ka saari kara si kasta isugu gurmano iyo si kasta aan u ororno waa dhiig joojin laakiin hal daruur ah oo da'day baa ummadoo dhan ku filan ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu abaarta naga saaro madar naafacana cirka uu ilaahay inaga siiyo tan shirarka iyo Soomaaliya Soomaaliya horta waxa wax badan in kaga qaldan yihiin waa madaxda ugu sareysa dalka oo markay say u fiican yihiin markii xilliga doorashada la soo gaaro waqtigoodii la soo gaaro yani dhinaca kale isu rugaya iyagoo doonaya muddo kororsi ama inay xilkii sii joogaan waxaan rajaynayaa shirarkan hadeer inaan laga niyad jabin sababtoo ah Soomaaliya qof ma leh wadanka waa loo siman yahay isla markaasna in dawladda Soomaaliyeed la helo waa waxaan laga maarmi karin oo daruuri ah marka aniga waxay ila tahay shirarkan iyo wada hadaladan inaan laga niyad jabin si kasta oo madaxweynaha wadanka hadda talada haya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo u lug jeedana de wadanku wuxuu leeyahay dad buu leeyahay oo dadkii kulay indhaha lagu haya marka waa in la yiraahdo madaxweyne shalay waa lagu doortay si nidaamsan baa lagu doortay maantay oo 3 bilood ku hartay dalka doorasho qof iyo coda وين أجنها وقتي إنك غير بتلان أهان إنك قاعدتي صدني اللي بدك ما وقتي إنك قاعدتي يشهدك إنك قاعدتي نقاليه إنك جب حي يو ماركتي إن وضم كله بيوحي وجه هستي إن مارت قفي عاد كان هرجليو وحي إنك قاعدتي وقتي إنك قاعدتنا ودريم كرنا إن نصدح بلاد أخرين تحس صورة جلكو أهينا وجرن كرنا وحينا صورة جلو أهين دي حتى أرمى أبني بأجره أو كرايسكو كونفرت الصومالية اللي جار كرينين نوضن كل جلية دور الشقة في عضة marka أنا waxaan dhihi lahaa qolada mustaqbalka oo mucaaradka ana waxaan dhihi lahaa ha ka niyad jabinina wada hadallada Soomaaliya hana ka harinina madaxweynahana waxaan oran lahaa madaxweyne sidii shalay lagu soo doortay bay ku fiican tahay dalka inaad doorasho u gelisid cidii fursad u haysaana markaas ay geyso qof iyo cod hadii uu bilaabi lahaa early maanta dameel fiican bay wax mari lahaayeen isqabashadaana ma yimaadeen laakiin de 3 bilood markay ka harto de waa qorax maqribkii joogto oo xilligan aan ku safrayna lama oran karo oo maalinimo ahaan ugu soconayna waayahay madaxweynaha Puntland Siciidani Xamar uu ku sugan yahay oo la socota kaalin buu ku leeyahay sidii isbedel siyaasadeed u iman lahaa shalay dad waan ognahay wax qarsoon maaha 2022kii Xasan iyo madaxweyne Deni oo wada socda iyo Axmedoobe waxay kursiga ka rideen farmaajo maanta tiiba taagan marnaba madaxweynaha dhankaaga maadaama la taliya tahay wax talaama ka siisay damaciisa muqdisho ama kursiga waa mahadsan tahay horta arrimaha siyaasaddu sideedaba waxa la yiraahdaa siyaasaddu de saaxiib joogta ama leh dan joogta bay leedahay shalay madaxweynuhu markuu farmaajo kursiga laga ridayay ma qaldaneen farmaajo waqtiga ka dhamaaday inuu doorasho qabtana waa lagu saxsanaa ummadoo dhan baa doonaysay madaxweynuhuna ummadaas ka mid ahaa xasan sheekhan xaq ba u lahaa hadii uu tartamay inuu tartamo haduu madaxweynuhu guuleystay noqdana in garab lagu siiyo lagu la shaqeeyo xaq buu lahaa isaguna marka anu marna qalad uma arkayo maanta haduu Siciidani doonayo inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya xaq buu u leeyahay oo tartamaya haduu codkaas helo oo la doortana waa madaxweynaha Soomaaliya haduu waayana sidii shalay oo kale waa dhulkiisa Ilaahay buu joogaya
marka uma arko anu wax caqabada shalay maxay saas u noqotay shalayna way noqotay maanta way noqotay birina way noqonaysaa oo waxay noqonaysaa de markasta wadanka isbedelkiisa iyo saameynta siyaasadda markasta la socod bay u baahan tahay iyo gacan ku hayn hebel baa shalay halkaa joogay hebel baa maanta saa ahaa maaha way dad badan oo ka aragti doon waxa laga yaabaa inay qabaan in Puntland maqaamkeedii dhinaca federaalka ku lahayd dawlad dhiska maadaama sababi loo aasaaso Puntland ahayd in dawladnimo la raadiyo uu hoos u dhacay muddooyinkii ugu dambeeyay sababna u tahay dad badan madaxweyne Deni markuu yimid in dhaqaale badan uu ku baxay sidii loo raadin lahaa uu ku soo hongoobay 2022 hadda uu socda dad badan waxay qabaan qarash badan dhaqaale badan Puntland uu kaga baxay xilli xaalad siyaasadeed xaalad dhaqaale xumo Puntland ku jirto taama kula saxsantahay asleed innaga reer Puntland waa isnaqaanaa Puntland waa ognahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni aniga haddaanan hadda maanta aanan ahayn la taliyaha madaxweynaha oo yani aan qof shacab ahaan lahayd ee wareysan lahayd waxaan kuu sheegay xaqiiqaad u qaadan lahayd laakiin hadda waxaad igu xaqlin doontaa ama dadka i dhageysanayaaba ay u xaqlinayaan inaan afka madaxweynaha aan ku hadlayo oo markasta aan saydka madaxweynaha ahay laakiin reer Puntland ahaan markaan xaqiiqada ka wada hadalno sidaad u turjumaysaan idinka idin jirtaa laakiin markaan xaqiiqada ka wada hadalno madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Deni Puntland isbedelka uu ku sameeyay iyo waxa uu ka qabtay oo aan dawlad Soomaaliya ama tii ilaa intii isu soo bedelaysay ha ahaato aan mid ka qabatay jirin ba inaga dawladeena Puntland oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu hirgeliyay ka soo qaad kaabayaasha dhaqaalaha oo kale waad aragtay wado isku xirta gaalkacyo ilaa Boosaaso oo sanad walba roobabka iyo maaragtay isbedelka cimilada uu xudhimayo oo ama burburaya ama gabi ahaanba meesha ka baxaya oo haddana isla markiiba intii rehabilitation lagu sameeyo sidoodii lagu celinayo kama dhicin xamar afgooyo iyo xamarna iskuma xirna afgooyo iyo balcadna iskuma xirna jid ahaan oo aad bay u burbursan yihiin oo baabuurta waad aragtay dariiqyada ay marayaan iyo wadooyinka la sameeyo wadadii jidka isku xirayay xamar iyo laga leexday Soomaalida inteeda kale airportada dekedaha waxa socda waad aragtay mashaariicda socota biyo garow kaliya aad arki kartaa inta mashruuc ka socota marka hadii la yiraahdo maqaamkii baa hoos u dhacay anaga Puntland markaan isku tashanaa maqaamkeena baa kor u kacaya khilaafka yaro madaxweyne labada madaxweyne soo dhaxmaray mashaariicda ku hakata Puntland ahaan inaga horta wax badan inama yeelin oo hawlaheena iyo nidaamadeena iyo arrimaheena way inoo socdaan balse waa tan maanta keenaysa in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu mar dambe haddana isku dayo inuu Puntland inuu yani madaxweyne Soomaaliyeed noqdo waxay noqonaysaa qaladaadka dawladda federaalka ay galayso dastuurkii baa la faaqaya oo lagu ciyaaraya haddii alla ku roon yahay oo maaragtay wixii lagu heshiiyay baa laga leexanaya de waad u jeedaa haddii marka la yiraahdo daniyahu sidii lagu doortay ma ahan sidii la doonayay wax kuma wadin maamul goboleedyadii iyo wadamadii waa sii kala tageen inta hadda Xasan Sheekh xukunka gacantiisa uu ku jiray Somaliland baa tagtay oo awal haba tiraahdo anagu waa goosanay laakiin de xildhibaanaa joogay dad baa joogay nidaamkii ka tirsan buu ahaa Soomaaliyana la isku hayo laakiin maanta inay fariiro bixi ka baxdo de Puntland baba waxay kaabiga u istaagtayba inay baxdo u istaagtay sababtoo ah sidii loola dhaqmay iyo sidii loola shaqeeyay wada dagaal ahliya baynu galnay oo lagu dhibaatoobay oo inta layna ku soo cadow ina ku soo gooray ajnabi ah oo damcay wadankiiba inuu ina kala wareego dagaalka dawladda federaalka gacmaha ka laabatay waad ogeyd halkan waad ogeyd gobolka Sool oo markaas ka tirsanaa Puntland ka tirsanaa in maaragtay xasuuq baan u ka dhacay iyo dhibaato loo geystay dadkii dagaalkii halkaas ka socday Puntland ilaa ay faragelisay waxa dawladda Soomaaliya oo dadkaasi calanka Soomaaliya ayay markasta hoos joogeen oo ku dhadhabayeen inay dad Soomaaliya yihiin waad ogeed wixii ra'iisul wasaaruhu kaga jawaabay waadna ogeed wixii madaxweyne Xasan Sheekh talaabooyinkii inuu ka qaaday waad ogeed uu lahaa wadanka yaa la kala jarin idab darrada la iska daayo iyo Soomaalinimada iyo warayda marka dagaaladaas oo dhan Puntland khaas bay la noqotay inay dadkeedii hadday dib haystaan dhibkii ka faydana danbay ahayd in cadowgii caamka ahaa oo wadanka qabsaday la iska faydana dan kale ahaa midna dawladda Soomaaliya ina kuma garabsiineen marka haddii taasi dhacday maamul goboleedyadiina aad u jeedido xataa Jubbaland la weeraray intii diyaarada ciidan lagu raray halkii loo soo rari lahaa ciidanka argagixisada in lagu la dirado ama tan xamar hareereysay Arsenal lagu la dirado waxay noqotay in
dee puntland la yiraahdo ciidamaan ka dhex qoranay puntland baan burburinaynaa puntland baanu maaragtay cadow noo ah in halkaas la gaaray noqotay marka aniga uma arko maanta nin kasta oo Soomaaliya ama Siciidani ha ahaado ama musharaxiinta kale ee xamar ku jirta ha ahaado nin kasta oo maanta Soomaaliya siday tahay wax ka bedeli kara inuu isa soo sharaxay ila tahay inuu wax dhaqaale kasta ha ku baxo juhdi kasta ha ku baxo waqti kasta ha ku baxo in arinta wax laga bedelo aad iyo aad baan u aaminsanahay 2022kii doorashadii dhacday waxyaabo badan oo khaladaad dhacay boob baan dhacay kuraas xildhibaanadii tagay ee ku soo baxay oo madaxweynuhu gacmihiisa ku soo xushay maanta gacan kuma hayo bariishkii shalay baa la joogaa maanta maxay kula tahay in Puntland markan ay ka fiirsato oo khaladaadkii dhacay wax laga barto Puntland horta Siciidani anigu doorashadaas aad leedahay boob bay ahayd qabiilay dadkan ka socdeen cid walba reer baa wadatay qof walbana erge iyo dad u diyaarsanaa baa dooranayay haddii Puntland iyagoo matalaya la diray ama toos ha loo diray ama boob ha lagu diray la diray waxay ahayd inay Puntland matalaan hadda iyagu taa ka gaabiyeen iyagay jirtaa dadkii maartay ama ay matalayeen beel ahaan ku matalayeen ama deegaan ahaan ku matalayeen inay ka fiirsadaan dee waa talo u taala waya dhinaca haweenka oo kale sanadkan waxa is leedahay rajada aad ka qabtid in kuraastas federaalka Puntland ay qayb ka qaataan aduu sahan ma kugu jira aniga waligay hankaba ma dhigaba mana rajo beelo mana ku niyad jabo kursi aan waayay hadeerna diyaar baan ahay waa taagna haddii aan helayo waa raadinaya waxaana aaminsanahay aniga haddii aan kursigaas helo waxa aan ku matalayaa deegaankayga dadkayga inay yihiin sababtoo waa kuwa aan ka qaatay kursiga niman badan baa jir gabdhaha kaliya inaad soo qabatid maahan niman badan baa jiray xataa aan matalin deegaanadii ay u tageen laakiin inta badan indhihiino dee rag ahaan wadaad waa nin weeyo markasta indhahaaga waxay saaran yihiin gabdhahay saaran yihiin ma ka hadlaya xildhibaan baa okay caqabadii shalay marka ka hortaagneed kursiga ee qabiilka ahayd maanta way taagan tahay ma is leedahay bariishkaas waa ka gudbi kartaa waa ku dadaalaya wax ka soo qaadka Ilaahay baa iska leh laga yaabo in Ilaahay daba iigu dhufto oo maaragtay xaq ay gartaan way dhahan gabar iyo wiilba anaga u oday ah haduu isin yahay anaa u isna haduu nabadoon yahay anaa u wada nabadoon ah haduu nin garbood kale yahay oo yiraahdo maanta alle lahay iska roga waxaas in badan baa la idinku eedeeyay gabdhaha wax uma qabtaan iyo gabdhaha ma soo saaraan maanta gabdhaha garab siiya waa ka rajaynaya kama rajo dhigin kama quusan waana u taagnahay insha Allah waayo qof kasta oo xil doonaya markasta saas u dhaha waxa qabanaya saana yeelaya oo ka fiicnaanay haddana beritoole qofkii ma aha after before ma laga yaabaa taasina kugu dhacdo أنا هذا روح بان قبني أبوكم ما بدهم أنا بطلان بان مثلي أبو وصح لكن هذا حمل تكتيد أما أثبت شيء أما تي أو كلا العذاب كوضع اللي الدرية أنا ولا جاي لول بانها ولا جاي أرمي بطلان بانو تاجنا وضن كي جمرنا كما تلابسن وأنا هاي وضن صومالية دورن بعد حلي بانو نقول يسامر كذا هالك تكتيد لكن سيجارة وحلي رجال شيء رجال واود شراء وأنا كل شرتها أنا حلي بان صومالية بان نقول لكن حدنا xildhibaan Puntland wax Puntland lagu dhakri karo ama Puntland dib kaga imaan karo ama Puntland aniga laftigaygii aan shar ku noqon karo inaan sameeyay baan qabaa way ugu dambeyntii soo gabagabeynina su'aasha u dambaysa waa maxay noloshaada intii aad nooleed go'aan aad gaarto ka qoomaysa go'aan intaan gaaray aan ka qoomameeyay ma jiro wixii aan waayo waxaan isleeyahay xaq rabbi bay san ka dhignayn wixii aan helayna waa alxamdulillah oo iyaduna xaq rabbi bay iiga ahaatay markasta waxaan ku qotomaa maadaama aan gabar islaam ahay yaqiin baan leeyahay wixii ilaahay ii qoray qofna igama maamnici karo qofna dhinac igama marin karo marka go'aanada aan gaaro waxa kamid ah inaan kuraastaas oo kale to iyo inaan ka qaybgalka siyaasadda ka soo muuqdo iyo inaan gabar yaani dalkeeda iyo dadkeeda wax ku soo kordhin karta aan noqdo baan markasta go'aanadaydu kuwaas weeyay kana murugana iguma hayso dhibna iguma hayso haday ii fulwaayeen wixii ii fulayna alxamdulillah ilaahay xaqiis bay ka ahaatay way arrimaha siyaasadda ku jirtid iyo noloshaada qoyska wax saameynaya miya ku yeelatay sidee u maareysa maya aniga waxaaba markasta ii priority 1 ah gurigayga iyo reerkayga iyo caruurtayda waa priority 1 wixii aniga iga soo harabaan baan umada ugu adeegi karaa ha noqoto inaan ka qayb qaato dagaaladii wadanka ka jiray ha ahaato inaan ka qayb qaato wacyigelinta dadka ha ahaato inaan abaara ka qayb qaato ha ahaato inaan maaragtay waxbarashada ka qayb qaato inaan caafimaadka ka qayb qaato inaan wacyigelinta umada ka qayb qaato waxaas oo dhami waxay ii noqdaan second sababtoo ah
kullukum raaci wa kullukum mas'uul can raaciyatihi waxaan mar kasta aniga mas'uuliyad baa gurigayga iyo reerkayga iga saaran anaa la igu ogyahay hooye ahaan tarbiyada ilmaha iyo agaasinka reerka iyo zawjka iyo wax oo dhan mas'uuliyad baa iga saaran kuwa markaan xafido waxa kale oo ummadda igala dhaxeeya dhab ahaanta way ii fududaanayaan waana ku faraxsanahay mar kastaba guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wareysigii maanta aan studio Milga Media kula yeelanay la taliyaha arrimaha haweenka madaxweynaha Puntland Marwuluul Feryare intaan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo